وفودون يوشل هوغاميايين مدحوينها دولة goboleedka koonfur galbeed mudan Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo marwada koowaad madaxweynaha qaranka Marwo Zainab Cabdi Macalin oo qayb ku hayeen gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed wasiiriin iska jari heer federaal iyo heer dowlad goboleedka koonfur galbeed yagee ka suwin lahan ka dhawaay degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed muhiimada safarka oo haytay shiidkowka mashaariic horle oo lanka adeega u shacabweynaha ka nool degmada Baraawe oo ay ku mid tahay MCH ka hooyada iyo dhallaanka oo dhibaatadiisa ku teeganaytay degmada Baraawe on lahayna MCH hooyada iyo dhallaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo soo hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen iyo wada dadaalo la ka xaqabtiro baahiyo haysada bulshada reer koonfur galbeed shiidhigun MCH ka yana qayb ku ah xaqabtiro ka baahiyo bulshada gudoomiyaha maamulka degmada Baraawe caasimada koonfur galbeed Omar Sheekh Cabdi oo munaasabad kooban oo hadhawaayo ee lanka soo bi madaxweynaha aqalka madaxtooyada degmada Baraawe yan koreen warbaahinta dawladda la hadalay maynu soo hadhawaay wafdugunga ka hadeeri degmada Baraawe maanta waxa sharaf inoo ah anagoo macnaa oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed oo markii ugu horeen madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed iyo golihiisa wasiirada iyo marwada dawladda federaalka maamul Zainab iyo golaha wasiirada dawladda goboleedka koonfur ee federaalka Soomaaliya waxa sharaf inoo ah qof walba mansabkiisa iyo karaamadiisa ku soo dhaweynaa odayaasha dhaqanka waxa leeyahay waqti kuleel la lagu jiraa insha Allah ta'ala waxaan leeyahay maana mudan madaxweyne soo dhawow golaha wasiiradana soo dhawaada Baraawe waatan wata idinka u jeedaan waxa maanta maana meesha idinku soo dhaweeyay waa dareemi kartaan ururka hooyooyinka gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudan Cabduqaadir Shariif Sheekhuuna May oo qayb ku hay wafdigu soo gaamiyay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ee hadeeri degmada Baraawe ayaa soo kale warbaahinta la hadalay maynu soo sheegay in degmada Baraawe caasimada koonfur galbeed aan muuqato degmo soo biyahay horumar inaan ku soo dhaweey madaxweynaha iyo marwada koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wufuud kale oo la socotaba degmada Baraawe mudan madaxweyne Marwo Zainab iyo dhammaan dadkii wufuudda la socotay waxaan leeyahay ku soo dhawaada Baraawe saa hore sheegay sharaf weyn ay noo tahay wafdi intaan la eg oo baaxadaas leh waxa waaye oo dawlad goboleed iyo dawladda dhexe ay madaxda mas'uuliyiinta hogaaminayaan inay imaadaan hamza inay imaadaan sharaf ay noo tahay insha Allah runtii Marwo Zainab wax qabadkeedii iyo waxa idinku ugu talagashay reer Baraawe iyo koonfur galbeed iyo Soomaali haweenkooda iyo shacabkoodiba barnaamijkooda ayaga dib ka faahfaahin doona mar raba aniga inaan ka hordhaco Zainab Cabdi Macalin marwada koowaad madaxweynaha qaranka iyo dhanjay sheegtay intii mashruuca Zainab Macalin Foundation mashruuceen ka horeeyay ku ful yahay degmada Baraawe kaas oo lanka talagalay inta la hormari hooyada iyo dhallaanka waxaan nasiib wanaaga ah in reer Baraawe ay noqdeen magaaladii koowaad ee nasiib u yeelatay in laga hirgeliyo mashruucan mar kale alla ayaa mahad leh oo inoo suuro galiyay maanta inaan soo gaarno bilowgii mashruuca oo barbilow u ah mashruucyo kale dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed waxay gaar u tahay shaqo aan isu xil saaray oo waqti dheer igu qaadatay inaan soo diyaarino waxaan rajaynayaa in uu guuleysto inta ka hartay sanadkan caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Baraawe oo mashaariic shal duwan ku ful yahay isla markaasna iyo socdaan waxaana kale oo la sheegay dhismajo iyo madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen ma isku hadalay MCH iyo waliba faa'iidadu san leey bulshada gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo dhibaato weyn iyo qabeen helowka MCH kun runtii farxaday noo tahay inaan maanta aad nagu soo dhaweysaan Baraawe annaga oo isla jirno oo wada dhan aan ku soo dhaweyno marwada madaxweynaha Marwo Zainab iyo wafdigeeda aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maama soo dhawow ku soo dhawow dalkaadii iyo dadkaadii iyo meel laga jecel yahay adiga wafdigaadaba aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maashahaada intii Baraawe intaas oo dhan aysan haysanin dhibaatada hooyada iyo dhallaanka ma haysanin MCH iyo isbitaal ay ku dhalaan haddana daruufta jirta waxay ahayd ma la haysanin meel loo baxo oo isbitaal waxa ugu horeeyay xamar ayada naftirkeeda 200 kiiloomitir oo isku wareegsan ee isbitaal u tahay oo baadiyaha laga soo aaday looga soo lugeeyo gaari dameer lagu yimaado dhibaatada ugu weyn oo Baraawe aan ka maqlay ugu yaabka badnayd waxay ahayd anuu Nairobi joogo yaa waxa soo wacay gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu yiri gabar yar
oo 16 jir ah oo ugub ah yaa foolanayso waana dhali weysay 7 bari wax la saarayna male markabna male adoonna male jidkana baabuur male waxaan sameynaa garan la'aanahay diyaaradna male airport ma jirin maxaan sameynaa maxaa ugu sahlan la suubin karaa gaari baa inta laga ijaarayaa oo $800 lagu ijaarayaa oo lagu geynayaa xamar aniga $800 naga bixinayno berrita loo ijaaro diyaaradda gaariga hala saaro ilaahay amarkiis gabadhii waa badbaaday jidkii intay ku sii jirtay yaa ilaahay kala keenay jugjugti baa ilaahay ugu naxariistay dhibaatadaas iyo daruurtaas adag oo hooyada iyo dhallaanka reer Baraawe ay qabaan yaa jirto iyo waxyaalo kale oo ka sii badan waxyaalahan hadda u socono waay Baraawe saa la socotay waa caasimadda rasmiga ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed guud ahaan gobolada Koonfur Galbeed may ku socday mashaariic horumarineed oo fuliyahay dowladdu hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen taas oo ay muujiyay takumira dhalawka oo hay intii horumarinta bulshada qayb weyn ku qaadan doonta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed MCH ka hooyada iyo dhilaanka ee geekala ka shidhiki degmada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed may qayb ku eeyaa aqabtirowka baahiyooga haysadii bulshada ka nool magaalo xeebeedka Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed silan kumir dhalan shaqeeyo ka shacabka wana lan ogaada ilaalinta awlaadi wiliba aadiyo Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed caasimadda Koonfur Galbeed Baraawe